بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ليس سلام توقو قال سند بلشوين تسومالي تكون سلام يا waxaan rabaa xog xasaasi inaan bixiyo maanta xogtaas oo ah arrimaha Jubbaland iyo Kenya iyo ninka xoog ku haysta Jubbaland hogaamiyaha Jubbaland sheeganay inuu yahay qodobka koobaad waxaan rabaa inaan maamaha ku bilaabo maamahdaas oo ahayd nin geel lahaa oo Soomaali xoolo dhaqata ahayd geel badan lahaa geel wanaagsan lahaa barintii qoor qurbac wanaagsan oo soo dhalay oo qoor u rabay hal wanaagsan ay dhashay ayuu kaga dhacay cudur leeyahay Eldun eheladiisa oo madaxay qurbaca Eldun oo qabaay ka qaba geel aniga qurbaca iska leeba ma aqaan maxay idinkeedan baro yiri inuu Eldun qabo subax dambe arko qurbaca cagaa dhulku ku jiidiyo geel gaari la ku qariyo Eldun aad qabtaa saaki geel waa laga reebay waxaan rabaa waxaan qarinay inaan banaanka soo dhiga dhageysti marka dhagaha furo Soomaaliyeed Axmed Madoobe waxaan rabaa inaan asaga marqaati gashto anigoo ah maanta oo ay tahay taariikhda labada bishii koobaad 2021 anigoo ah Maxamed Nuur Buulo wasiirka xanaanada xoolaha iyo dhirta daaqa dawlad goboleedka Jubbaland ahna xildhibaan Jubbaland waxaan rabaa waxa aan bandhigaya inaan bandhiga asaga kalafay oo laba carab la noqday oo goob walba tagay oo meel walba been ka sheegay beentiisi iyo runtiisi inaan idin kala cadeyn raba maanta oo ay tahay waxa la yiri beelow nin dhintay iyo nin dheer buu marqaati gashtaa waxa kale oo Soomaalidu ku maamaada xaasidkaada oo aqal wala marqaati gashtaa kulli aqal ma Axmed oo haduu aqal yahay fagaarooyinka waxa hadda askaga hadlay kaga muu hadleen laakiin asaga marqaati gashanay Ilaahay kana samaystay asaga iyo midka ku xigeen ku ah shahaado suurka ah oo kursigiisa labada laga dhigay dawlad goboleedyada kale laba kursi oo ku xigeen ma jiraan la sirri kursigiisa oo raaliga ku ah oo constitutionkii ama xeerkii Jubbaland wixii uu qoray waxaan ahayn meesha ku fadhiyay iyo laba wasiir oo kale annagoo ah ayuu noo yeeriso wax wuxuu nagu yiri nimayahow jannada Soomaaliya waa Jubbaland dawlad guunaan xiriir la leenahay tacliinteedana ay guun tahay dhaqaalaheedana uu guun yahay dawladdaas waa Kenya aan ka sii jeesano Soomaaliya aan u sii jeesano dhanka Kenya aan ku darsanna waa janno dhulkeena warshado iyo beere iyo wax soo saar iyo wax walba leeyahay waxaan ogahay jilib iyo Kismaayo waa 120 kiiloomitir toddoba warshadood ka dhisneed markii dawladda Soomaaliya dhici jirtay wixii wax ka sii daran iyo wax ka badan oo wada janno ah la soo saaraya iyo shidaalla bad iyo biriba xaggan u jeesanayna Soomaali qabqabteeda qaylideeda aan iska dayn waa degdegayo wixii ku jiri maan suguni ficila ila kacay oo waxaan iri Axmedow ma kilinka inoo distin aan raadinaan leen annagana adna masaaka leedahay Kenya aan raacno oo maxbuusti ay ku qaadaysay sakeelada xaarka aan noqon saasan leedahay saak wuxuu ugu yiri adoo nool inaan janno ku geeyaan janno nolosha inay janno kugu imaadaan rabay konton sano hadda kadibna wax lagu fahansiin doono mac salaama waa kacay fadhigi buu noo kacay kuwii kale ma ay hadleen ayagana marqaatiga ay Allahna samaystay Axmed Kenya qabiy qoraal uu la galay inay Kenya inay Jubbaland kamid tahay gobol kamid ay tahay ama kilin kamid ay tahay Kenya qodobkaas qabsada horta daadan ogaan Soomaaliyeed dalkaas heshiisa lagu galay waxaad ku fahmi kartaan oo aad ku ogaan kartaan oo fiirsada hadalkaas markuu aniga iga yimid waxaa lagu bilaabay duqeyn ateenooyinkii ka shaqeynayay gobolka Geda iyo Jubbada Dhexe meesha la yiraahdo Jubbada hoos hal ateen laga ma gooyin waxaa laga bilaabay biyac garoon waxa lagu xijiyay Gariley waxa lagu xijiyay Caws Quran waxa lagu xijiyay Isuguur waxa lagu xijiyay Dhamas waxa lagu xijiyay Lakoole wax alla 30 kiiloomitir meel u jirta balaxaw iyo meesha aan idin sheegaya oo diif korkeeda inta ka dhaxaysa baa la jaray ateenooyinkooda waxa la isu sheegay dad iyo dunyaba dhulka la sameeyay si loo duqeynay heer dabka la shidan waaya la gaaray waxa la isu sheegay meeshaan madacade ka jiraay garaac aan isku ogolaysiin waxaas moog yahay Axmed
xarig gumaysi ku dhashay xarig gumaysi uu ku soo karay haddana gumaysi zabada kula jira wuxuu moodayaa sida asaga loo gumaysan jiray in dadka Soomaaliyeed loo soo gumaysto war dadkan waxay diideen Talyaani iyo Ingiriis gumaysan way oo cagtooda gelin way oo isaga tagay marka ay noogeen wuxuu moodayaa dadka garaaca iyo xoolaha laga laaynayo iyo duqaynta iyo toonooyinka la jara inay idab ku yeelanayaan ku raacayaan oo shahaado suur ku noqonayaan oo Kenya ay ugu noqonayaan raacid war annaga dadkanaga iyo dalkanaga u raadinayna dad kale meel aan uga keen taas halkaas ay taala waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu lahaa waa leela dirare ku cambaar la leega dhigay inta la yeelay farmaajo is dhisa laba carab la way ilaahayna kama baqay noocay uu fircoon u hadli jiroon oo hadla fircoon wuxuu dhihi jiray hadalkayga hal qaadana hadal kala ma jiro cid kale oo hadalkeeni kartana ma jirto axmed waa noocay fircoon hadalkiisa Jubaland hadalkiisa bas ka soconay qof kale hadli kara ma jiro anuu bigu yiri anaan u weyn anaan u yar kayga ninkan sida cadiis ku qaadanin Jubaland jooga ma hayo moodo joogay يزوتي فرعون ما هتاس إيه نبي موس حاجة نجينا وحدير بيل إيه أفر طبعا عشان أفرتن إيه لبدر وال بابور تتجني كذا وتترين تقال برا يلقوا برا يجوروا جبضة أو أي صومالي ولا تقان أو بيل إيه أفر طبعا عشان كدمنا ترين كأسرع الصاحري هذا مركو قدام بيسوس كإماري إمارات كوسكين تقصبين جوجو صقلة أسرع وحري سد حبين مركو لبرجي وسل جوجو سوري سنة يس أقعدي يترين كوحد بابورت وحيا لانشير كله فرياش ودين ويل بو أول وديت هذا نسقى لوريك فرياش ترى ولين تي مقالة ده هذا اللودري واحد اللودرين وايدين شيء بابورت أسكران يا لودياري دوبلي إني تجان قردجاح جلان وجير كجلان بلد حاوك وريران مديرة ساس اللودياري بابورت وقل إيه لحدن عيدن هلا قاضي سقاشن كلا كحكتي سقاشن كلا كحكتي جديد كان الربعين اللي قد بجيه مركي لقى صار هالشيسكي في الصومالي كذب أنت اللي دياريوس دي شيء تذكر عوشة كينيا وأنا السو ويرره يقول أنت ويرر كسوع روامه أما دتك الديجان كها مركي وكداد عوي كعويان وهو بدل أرنته إنه أسقى ويرر تجا قبل كذا كذب سدتك سوي عرودان وضدك ولا لها أوكلا أيجي وصوران ولا يرا ودينا نصور أما بسمع نصور ورا بسمع مريحان أديك إسكو مدير كرتيت ما نكل علين كرتيت وضد ولا شيء وضد لا واحد سقط دري وضد واحد وضله وضد واحد كده حيان إسكو ما ندعيان إسكو ما ندعي دونان ذنوب تقدم بيجا أتجلسوا إلهك على حساب طمية مال إسكدي عشوا الله نكعشوا ومدي سنة كعشوا وأنت أدر قفات كحني بدن تمتير ولا إسكا كعدنا سادو فكري سلة بجبر كده يدك قوة فكري يعني وأنا إسكور قبان كي أديك إن أنت بديل فوق تشوس دولة كلوا من جبل انتقال كمير ذكران ما أنا كقاعدنا يعني تنكله علماء الصومالي بحي أجهين أحمد إنه صدهم سنة جاجوسها وأنا قرني وحي وشيء لي أنا ما قال أنا شيء أيضا ويكمل قاعد فردونا أحمد ما ننتوه الرئيس سوى بمباسا ميس كله مركي مورس للدليل شيء حسن تركي الله الرحمة له كمبوني أسوي وجوه أو حاليري يعني أدري كرنا ماشى وحكتي هذا نفت كيني كره دوما الله قدي وقال له وقدي بركاس كان عصدان ما هاني جا جزني موجود صبح الدنبنا وهو اسكم ملي أو بستو قشتي ميدوق محكمة ده مركي اللي جبينا تضبطين سديد أسقى كواهي تضبطين إنه كلنا والد لا أسنو على سوق هذا سوق راوع مع الله سوق هذا مكوك على رجع الله وعسيري مساري إماد جويسان جيب الكيكة كوجرة وحاسق الله سوق هذا أو قال الله سوق هذا قال كلو ودي بمقرن كرتين دين وحود تعليلين يا ذلك إدتك الدين تبغى كجدوسيا وأنا أوجي هندتك وده جدا وما أنت سوسكو دحقرين كوا بدن اسكو دحقرين ودين كودا أكتين واجران ومرك حقيقة لقاها الله هذا أوجين أحمد أديك إن سيدان صدقان سيان هن اللي جوي قان هداد وهايسته سيدا صدقان ما هو سيد اللي جوي قان ضد كان سيدان إنه كل شيء جوي قان عيرهن
وعل فلو حنتي سمم موجي دتك كم معنا وعل حنتي سمم موجي هذا الحنت هذا من موجودي عبايس دقتر مركو إذا ليه قنصلية سميسن كر أنت عايز حدود إيه القنصلية حدود كل سميسن كرتك سمايا كبح العادة 30 كيلومتر حقهم ما دافكرت 10 كيلومتر حقهم ما دافكرت قبل كده ويقولوا دولة الله هاي وحكومة يسدد بقولوا كيلومتر الله هاين هلا بينكم هذا هويين وماشي الله ده والصومالي ها مقاشو مرقاتها كاهته dad madaxweyne dadkii uu xukumay qaybna way ugu soo duulay qaybna way rabtaa xageed ku aragteen adduunkii muslimiin gaal cid ay ka timid ama laga maqlay ama lagu sheegay cid cadeyn karta ama saaki sheegi karta ma jirto waa ninka laga haaya qaybna way ugu soo duulay qaybna way jeceshay dadka markuu dadkii lahaa way jecelyihiin uu kicin wayna asaga duulaanka sameynaya saaki Kenya waxa laga keenay daraad markuu u xiray nimankan tareerinka مولانا نيل يروح تاتوس ها ولوسو ديري جراي ماده هل يري نمك دليرada jidka galay baabuurta ma tagi karta dhobley maxaan sameeynaa مولانا yar markaa ma diyaarinayna markaban ku keena markabkaas laga saara dekada kasmaay 40 iyo labada baabuur laama laga dejina waxa laga soo bixinaya haluuqo waxay soo mariyaan faafi waxay soo mariyaan dabadheer waxay soo mariyaan caalin juqur waxay soo mariyaan xagar dheer waxay sii mariyaan dhagaxley biimadoob ay ka dhacaan banaanay ay jidkan weyn oo libooyo ka imaado abaqa baroon uga dhacayaan oo wajeer ay ka gudbiyaan madheer ay balaxa ka weerarayaan baabuurta asaas loo diraa Soomaalidana ma ogo busto sukin saara diyaar waaya wax cad waaya waa waxan kitaabku mara waa wuxuu Ilaahay marqaati ku ka yahay waa waxay reer Jubbaland og yihiin waa wax la wada og wax qarsoon maaha waa bariye sacab lagu ma qarin karo haduu u haysta ama ay Soomaalida inay ogeen isu maleynaya Soomaaliya ogaad horta arintaas qodobna waa qodobkaas qodobka kala bad sida heshiiska qabi qoraaleedka loola galay Jubbaland heshiis qabi qoraaleed oo la galay waxad way Kenya heshiis qabi qoraaleed oo la galay wuxuu intaan u marayana waxa weeyaan oo intaan dagaal u marayana inay Jubbaland raacdo Kenya xaafad Kenya kamid ay noqoto Jubbaland gobol Jubbaland kamid gobol Kenya kamid inay Jubbaland noqoto ayuu intaan u maraya waxa kale oo idin sheegi oo xaqiiqo ah oo cad oo ka hadlay inuu laba carab baalka jirjiroolaha maartay inuu mar casaan yahay mar madow yahay mar blue mar cagaar mar white tabtaas way wuxuu lahaa xuduudaha dawladda iska leh war waxaan isku qabanay oo maalintii u horeysay aan isaga hormaadnay xamse markaad u magacaabayso gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ma ku iri xuduudaha ilaahay baa marqaatay ka ah dawladda mas'uulka ay adiga kamid war dawlad ma naqaan qodobka 93 xeerka Jubbaland wixii loo jibinay oo aan shirka jaraa'id aniga xildhibaanada kala ka qabanay waad ugu tiri albaabaad ugu furtay Jubbaland nimaan adi ahayn kama hadli jirin haddaad ka hadash hadda si hadaan ku dila ma in liika qadqaasa ay kula tii u lahaa agmadhiga iga duubay codka xildhibaanadana ka qaaday oo London jooga baa wareysiga naga qaaday waxay ahayd xuduudaha shalayna wuxuu lahaa dawladda xuduudaha shaqo ku leh marna waxaad leedahay dawladda shaqo ku leh marna waxaad leedahay dawladda ay weerarayso marna waxaad leedahay aniga ambaar li saare warada xajir ninka hebel waa lagu cayay ala iscay iscibay warada dadka iska takooray inaad istakoortan waxaad ku ogaani inta maamul goboleed oo jirtay gobolka Banaadir ma farta lagu fiiqa hatta dhagoolkii yiri inaan gardarana waxaan ku gartay dadka farta igu soo wada taagay dhagoolkii intaad gartayn hatta mitid adiga aqarana wax kuma garan doontid adduunkana Ilaahay aqliga waa ka qaaday oo garashadaadi wuxuu Ilaahay ka dhigay kursi iyo dhuuntan wax la mariyay ee qaacnimo iyo jaajuus diintaadi iyo dalkaaga iyo dadkaada ka jaajuusto gaal u jaajuusto sidaasan in kuga cadayna Soomaaliya inuu ku sifaysan yahay ninka xukunka fircoon uu ku haysto Jubbaland oo uu leeyahay ninkan aniga wax u sheegin ama waxaan aniga sheegin lagama sheegi karo gobolkaas gacanta kuma jiro Jubbaland la yiraahdo Soomaaliyeey war hadday Soomaalinimo jirto gobolkaas gurmadu u baahan yahay dadkiisa dalkiisa diintiisa badbaaday u baahan yihiin meeshay badda marayso maraya meeshay badda marayso maraya wallaahi waa magaca Ilaahay waa tagaya gobolkaas hadan hadda la ceyminin oo Soomaali u gurmanin aad baad u mahadsantiin Soomaali
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ليس سلام توقو قال سند بلشوين تسوماليت كل سلام يا waxaan rabaa xog xasaasi inaan bixiyo maanta xogtaas oo ah arrimaha Jubbaland iyo Kenya iyo ninka xoog ku haysta Jubbaland hogaamiyaha Jubbaland sheeganay inuu yahay qodobka koobaad waxaan rabaa inaan maamaha ku bilaabo maamahdaas oo ahayd nin geel lahaa oo Soomaali xoolo dhaqatay ahayd geel badan lahaa geel wanaagsan lahaa barintii qoor qurbac wanaagsan oo soo dhalay qoor u rabay hal wanaagsan ay dhashay ayuu kaga dhacay cudur leeyahay Eldun eheladiisa oo madaxay qurbacan Eldun oo qabaay ka qaba geel aniga qurbac iska leh ma aqaan maxay idinkeedan bar weeyir inuu Eldun qabo subax dambe arko qurbac waxa dhulka ku jiidiyo geel gaari la ku qariyo Eldun aad qabtaa saaki geel waa laga reebay waxaan rabaa waxaan qarinay inaan banaanka soo dhiga dhageysta marka dhagaha furo Soomaaliyeed Axmed Madoobe waxaan rabaa inaan asaga marqaati gashto anigoo ah maanta oo ay tahay taariikhda labada bishii koobaad 2021 anigoo ah Maxamed Nuur Buule wasiirka xanaanada xoolaha iyo dhirta daaqa dawlad goboleedka Jubbaland ahna xildhibaan Jubbaland waxaan rabaa waxa aan bandhigaya inaan bandhiga asaga kalafay oo laba carab la noqday oo goob walba tagay oo meel walba been ka sheegay beentiisi iyo runtiisi inaan idin kala cadeeyaan rabaa maanta oo ay tahay waxa la yiri beelow nin dhintay iyo nin dheer buu marqaati gashtaa waxa kale oo Soomaalidu ku maamaadaa xaasidkaada oo aqal wala marqaati gashtaa kullee aqal ma Axmed oo hadduu aqal yahay fagaarooyinka waxa hadda askaga hadlay kaga moo hadleen laakiin asaga marqaati gashanay Ilaahay kana samaystay asaga iyo midka ku xigeen ku ah shahaado suurka ah oo kursigiisa labada laga dhigay dawlad goboleedyada kale laba kursi oo ku xigeen ma jiraan la sirfay kursigiisa oo raaliga ku ah oo constitutionkii ama xeerkii Jubbaland wixii uu qoray waxaan ahayn meesha ku fadhiyay iyo laba wasiir oo kale annagoo ah ayuu noo yeeray subax wuxuu nagu yiri nimayahow jannada Soomaaliya waa Jubbaland dawlad guunaan xiriir la leenahay tacliinteedana ay guun tahay dhaqaalaheedana uu guun yahay dawladdaas waa Kenya aan ka sii jeesano Soomaaliya aan u sii jeesano dhanka Kenya aan ku darsanna waa janno dhulkeena warshado iyo beere iyo wax soo saar iyo wax walba leeyahay waxaan ogahay jilib iyo Kismaayo waa 120 kiiloomitir toddoba warshadood ka dhisneed markii dawladda Soomaaliya dhici jirtay wixii wax ka sii daran iyo wax ka badan oo wada janno ah la soo saaraya iyo shidaalla bad iyo biriba xaggan u jeesanayna Soomaali qabqabteedii qaylideeda waan iska dayn waa degdegayo wixii ku jiri maan suguni ficila ila kacay oo waxaan iri Axmedow ma kilinka inoo distin aan raadinaan leen annagana adna masaaka leeda Kenya aan raacno oo maxbuusti ay ku qaadaysay sakeelada xaarka aan noqon saasan naleeda saak wuxuu ugu yiri adoo nool inaan janno ku geeyaan janno nolosha inay janno kugu imaadaan rabay konton sano hadda kadibna wax lagu fahansiin doono mac salaama waa kacay fadhigii waa noo kacay kuwii kale ma ay hadleen ayagana marqaatiga ay Allahna samaystay Axmed Kenya qabyo qoraal uu la galay inay Kenya inay Jubbaland kamid tahay gobol kamid ay tahay ama kilin kamid ay tahay Kenya qodob waa qodobkaas qabsada horta daadan ogaan Soomaaliyeed dalkaas heshiisa lagu galay waxaad ku fahmi kartaan oo aad ku ogaan kartaan oo fiirsada hadalkaas markuu aniga iga yimid waxaa lagu bilaabay duqeyn ateenooyinkii ka shaqeynayay gobolka Geda iyo Jubbada Dhexe meesha la yiraahdo Jubbada hoos hal ateena lagama gooyin waxaa laga bilaabay Wiicgaroon waxa lagu xijiyay Gariley waxa lagu xijiyay Caws Quran waxa lagu xijiyay Xiisuguur waxa lagu xijiyay Dhamas waxa lagu xijiyay Lakooli wax alla 30 kiiloomitir meel u jirta balaxaw iyo meesha aan idin sheegaya oo diif korkeeda inta ka dhaxaysa baa la jaray ateenooyinkooda waxaa la isu sheegay dad iyo dunyaba dhulka la sameeyay si loo duqeynay heer dabka la shidan waaya la gaaray waxaa la isu sheegay meeshaan madacday ka jiraay garaac aan isku ogolaysiin waxaas moog yahay Axmed
xarig gumaysi ku dhashay xarig gumaysi uu ku soo karay haddana gumaysi dabada kula jira wuxuu moodayaa sida asaga loo gumaysan jiray in dadka Soomaaliyeed loo soo gumaysto war dadkan waxay diideen Talyaani iyo Ingiriis gumaysan way oo cagtooda gelin way oo isaga tagay marka ay noogeen wuxuu moodayaa dadka garaaca iyo xoolaha laga laaynayo iyo duqaynta iyo toonooyinka la jara inay idab ku yeelanayaan ku raacayaan oo shahaado suur ku noqonayaan oo Kenya ay ugu noqonayaan raacid war annaga dadkanaga iyo dalkanaga u raadinayna dad kale meel aan uga keen taas halkaas ay taala waa qodobka koobaad qodobka labaad wuxuu lahaa waa leela dirare ku cambaar la leega dhigay inta la yeelay farmaajo is dhisa laba carab la way ilaahayna kama baqay noocay uu fircoon u hadli jiroon oo hadla fircoon wuxuu dhihi jiray hadalkayga hal qaadana hadal kala ma jiro cid kale oo hadalkeeni kartana ma jirto axmed waa noocay fircoon hadalkiisa Jubaland hadalkiisa bas ka soconaya qof kale hadli kara ma jiro anuu bigu yiri anaan u weyn anaan u yar kayga ninkan sida cadiis ku qaadanin Jubaland jooga ma moodo joogay sootii fircoon ma hataas nabi muuse xagga dhigayna waxa dheer bil iyo 14 casha 42 darawal oo baabuurta tiknikada wata training dagaal barayo lagu barayo guriga badda oo ay Soomaali wada taqaan bil iyo 14 casha kadibna training ka asaga u soo xiray hadda markii uu dambeeyso ka imaaday imaaraadka Kenya tago sabeeno joogo soo galay asaga u xiray saddex habeen markii uu la bariyay oo isla joogo soo wareysanayo ogaaday uu training ku xiray baabuurtu waxay yaalaan shir kale furayaashoodina wiil buu awl u dhigtay haddana asaga la wareegay furayaasha darawaliintii magaalada hadda loo diray waxa loogu dirin waa idin sheegi baabuurtaas kolan yaa loo diyaariyay dhoobley inay tagaan qardajaax galaan wajeer ka galaan balad xaawa ka weeraraan madheera saasa loo diyaariyay baabuurta 160 ciidan ha la qaaday 90 kala ku xigtay 90 kala ku xigtay gaadiidkana la rabay in laga dabageeyo markii laga soo saara heshiiskii filla Soomaaliya kadib inta la diyaariyo idin sheegaya dadku wuxuu ugu sheekaynayaa waana la soo weerara iyo qola inta weerar ka soo rewaamihi ama dadkii deegaanka ahaa markii uu ka dhaadhicin waayo ka ciwaayeen wuxuu u bedelay arinta inuu asaga u weerar taga gobolka Gada kadib si dadkaas ay u caroodaan oo dadka walaalaha oo kala ay ayaga u soo weeraraan oo leeyahay ogaadeenana soo weerar ama absamaana soo weerar waraab samay iyo mareexaan adiga isku ma diri kartid mana kala celin kartid waa dad wada dhashay waa dad ilaahay wax isugu daray waa dad wax wada leh waa dad ay wax ka dhaxeeyaan isku mana dhacayaan isku mana dhici doonaan dunuubta iyo dambiga aad galayso ilaahay kaala xisaabtamaya meel iska dhig xisho allana ka xisho umadiisana ka xisho waxa inta dheer qofwaad ka xaniin badanta ma jiro wala iska ka dhicina saad u fikiraysa si laba jibaarkeed ay dadku wada fikirayaan waan iska warqabaan Kenya iyo adiga inin daba dhilfo jaajus dawlado kale waa midna Jubaland dagaal kama ridi karaan mana ka qaadanayaan tan kale culimada Soomaaliyeed waxay og yihiin Ahmed inuu 30 sano jaajus ah waana qarinay waxay u sheegayeen anima qaan ana sheega ayagana way ka marqaati furi doonaan Ahmed maalintii u horeysay asagoo bambaasa miis kule markii Morris la dilay Sheekh Xasan Turki Allah u raxmadee Kamboni asagoo joogo waxa la yiri yaan u diri karnaa meesha oo xogteeda dhafta keeni kara dooma loo gaday oo gaalada u gaday markaas la ganacsada ma ahayn jaajusnimo ku joogo subaxii dambana wuxuu isku milay oo busto u gashtay midowga maxkamada markii la jibeyna 7 asaga ku ahay 7 nin oo kale waa la dilay asna waa la soo qaaday soo dhaawac maxaa loo soo qaaday ma kuwa kale laga jeclaa waxa siri masaare imaad goyseen jibilkayga kugu jira waxa asaga loo soo qaaday oo gaal la soo qaado gaal kale oo u dhiibay ma garan kartiin idin wuxuu tacliilinayaa dalka iyo dadka iyo diintaba uu ka jaajuusaya waana og yihiin dadka wadaadada oo maalintaas uu isku dhaxqarinay kuwa badan oo isku dhaxqarinoo idinkooda ogtiin waa jiraan waa marka xaqiiqada laga hadlayo hadaadan ogeyn Ahmed adiga inaan sidaan aad isu taqaan si aan ahayn in lagu yaqaan hadaad u haysata sidaad isu taqaan ma waa sida lagu yaqaan dadkan sidaan aan ku sheegay ku yaqaan ay yiraahan
وعل فلو حنتي سمم موجي دتك كم معنا وعل حنتي سمم موجي هذا الحنت هذا من موجودي عبايس دقتر مركو إذا ليه قنصلية سمي سنكر أنت تاسع حدود إيه القنصلية حدود كل سمي سنكرتك سمايا تكبح العدد 30 كيلومتر حقهم ما فكرت 10 كيلومتر حقهم ما فكرت قبل كده ويقول سدولة الله هاي وحكومة أي سديت بقولوا كيلومتر الله هاين هلا بينكم هذا هويين وماشي الله ده والصومالي ها مقاش ومرقاتها كهاته دد مدحوينه dadkii uu xukumay qaybna way ugu soo duulay qaybna way rabtaa xageed ku aragteen adduunkii muslimiin gaal cid ay ka timid ama laga maqlay ama lagu sheegay cid cadeyn karta ama saaki sheegi karta ma jirto waa ninka laga haaya qaybna way ugu soo duulay qaybna way jeceshay dadka markuu dadkii lahaa way jecelyihiin uu kicin wayn asaga duulaanka sameynaya saaki Kenya waxa laga keenay daraad markuu u xiray nimankan tareerinka مولانا نيلي راهو تشاتوس اها oo loo soo diri jiray maade waxa la yiri nimanka dhalinyarada ah jidadka galay baabuurta ma tagi karta dhobley maxaan sameeynaa مولانا yiri markaa ma diyaarinayna markaban ku keena markabkaas laga saaraa dekada Kismaayo 42 baabuur laama laga dejina waxa laga soo bixinaya haluuqo waxay soo mariyaan faafi waxay soo mariyaan dabadheer waxay soo mariyaan caalin juqur waxay soo mariyaan xagar dheer waxay sii mariyaan dhagaxley biimadoob ay ka dhacaan banaanay ay jidkan weyn oo libooyo ka imaado abaqa baroon uga dhacayaan oo wajeer ay ka gudbiyaan ma dheer ay balaxa ka weerarayaan baabuurta asaasa loo diraa Soomaalidana ma oga busto sukin saara diyaar waaya wax cad waaya waa waxan kitaabku maraa waa wuxuu Ilaahay marqaati ku ka yahay waa waxay reer Jubbaland og yihiin waa wax la wada og wax qarsoon maaha waa bariye sacab lagu ma qarin karo haduu u haysta ama ay Soomaalida inay ogeen uu isu maleynaya Soomaaliya ogaad horta arintaas qodobna waa qodobkaas qodobka kala bad sida heshiiska qabi qoraaleedka loola galay Jubbaland heshiis qabi qoraaleed oo la galay waxad way Kenya heshiis qabi qoraaleed oo la galay wuxuu intaan u marayana waxa weeyaan oo intaan dagaal u marayana inay Jubbaland raacdo Kenya xaafad Kenya kamid ay noqotay Jubbaland gobol Jubbaland gobol Kenya kamid inay Jubbaland noqoto ayuu intaan u maraya waxa kale oo idin sheegi oo xaqiiqo ah oo cad oo ka hadlay inuu laba carab baalka jirjiroolaha maartay inuu mar casaan yahay mar madow yahay mar blue mar cagaar mar white tabtaas way wuxuu lahaa xuduudaha dawladda iska leh war waxaan isku qabanay oo maalintii u horeysay aan isaga hormaadnay xamse markaad u magacaabayso gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ma ku iri xuduudaha ilaahay baa marqaatay ka ah dawladda mas'uulka ay adiga kamid war dawlad ma naqaan qodobka 93 xeerka Jubbaland wixii loo jibinay oo aan shirka jaraa'id aniga xildhibaanada kala ka qabanay waad ugu tiri albaabaad ugu furtay Jubbaland nimaan adi ahayn kama hadli jirin haddaad ka hadash hadda si hadaan ku dila ma in liika qadqaasa ay kula tii u lahaa agma dhiga iga duubay codka xildhibaanadana ka qaaday oo London jooga baa wareysiga naga qaaday waxay ahayd xuduudaha shalayna wuxuu lahaa dawladda xuduudaha shaqo ku leh marna waxaad leedahay dawladda shaqo ku leh marna waxaad leedahay dawladda ay weerarayso marna waxaad leedahay aniga ambaar li saare warada xajiri ninkii hebel waa lagu cayay ala iscayay iscibay warada dadka iska takoore inaad istakoorteen waxaad ku ogaani inta maamul goboleed oo jirtay gobolka Banaadir ma farta lagu fiiqa hatta dhagoolkii yiri inaan gardarano waxaan ku gartay dadka farta igu soo wada taagay dhagoolkii intaas gartayn hatta mitid adiga aqaran wax kuma garan doontid adduunkana Ilaahay aqliga waa ka qaaday oo garashadaadi wuxuu Ilaahay ka dhigay kursi iyo dhuuntan wax la mariyay ee qaacnimo iyo jaajuus diintaadi iyo dalkaaga iyo dadkaadi ka jaajuusto gaal u jaajuusto sidaasan in kuga cadayna Soomaaliya inuu ku sifaysan yahay ninka xukunka fircoon uu ku haysto Jubbaland oo uu leeyahay ninkan aniga wax u sheegin ama waxaan aniga sheegin laga ma sheegi karo gobolkaas gacanta kuma jiro Jubbaland leeyahay Soomaaliyeey war haday Soomaalinimo jirto gobolkaas gurmadu u baahan yahay dadkiisa dalkiisa diintiisa badbaaday u baahan yihiin meeshay badda marayso maraya meeshay badda marayso maraya والله ومقع إلهي واتقى يا قبل كاسدان هدا لا أي منين أي صومالي أقرمنين أدبادهم هالسنتين صومالي
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ليس سلام توقو قال سند بلشوين تسوماليت كل سلام يا waxaan rabaa xog xasaasi inaan bixiyo maanta xogtaas oo ah arrimaha Jubbaland iyo Kenya iyo ninka xoog ku haysta Jubbaland hogaamiyaha Jubbaland sheeganaya inuu yahay qodobka koobaad waxaan rabaa inaan maamaha ku bilaabo maamahdaas oo ahayd nin geel lahaa oo Soomaali xoolo dhaqata ahayd geel badan lahaa geel wanaagsan lahaa baariti qoor ee qurbac wanaagsan oo soo dhalay qoor uu rabay hal wanaagsan ay dhashay ayuu kaga dhacay cudur leeyahay Eldun eheladiisa oo madaxweyne qurbaca Eldun oo qabaay ka qaba geel aniga qurbaca iska leh ma aqaan maxay idinkeedan barweeyir